الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بهديه إلى يوم الدين إن وشاكدي اللباد وأن رنتي كسي كورينا يا شاكا نوسي سعتي تحنا هايد شاكدا سو أقون إسويدارسي شاكدا أقون إسويدارسي رنتي وحان وطلق علي in aan wixii malahayga ah ama aqoontayda oo aan aqrin ama qoraal ama aan runtii leeyahay waad la wadaagi kartaa bulshada ayaan baan doonayaa dana kale oo intaa dheer malihi cidna iguma fangareynayso inaan hadlo maxaa la dhihi jiray mana ihi oo isumana aqoonsani inaan ahay qofkii ku habboonaa arrintan ee aqoonteeda rasmiga ah lahaa maadaama aysan takhasuskayga ahayn laakiin se waa arrin aan dareemay in loo baahan yahay bulshadeenna maanta in aanu isu sheegno iska wacyigelinno aqoontayda dhisno dabadeedna ay dhici karto in maxaa la dhihi jiray marka wacyiga iyo aqoontu ay koro u kacdo in dadku ay alla subxaana wa tacaala wax ku taro qayb ka mid a hadaladayda iyo wixii ka dhasha gadaal waxaan horey uga soo hadlay waxa loo yaqaano phobia phobia marka aan ka soo hadlayay waxaan doonayay runtii in aan marka waxaan soo akhriyay iyo waxa marka ii muuqanayay inaan soo gudbiyo dadka qaarkoodna waxay ugu yiraahdeen yahow waxa cilmiga zaidka ah ee runtii sida gaaladu marka sahalka u dhigeen maxaa la dhihi jiray macno gaar ah nooma sameynayo marka waxaan isku dayayaa bal in aan si marka aniga marka aan u oran karo oo aan ila muuqata anigoo nafar muuqis iyo waxbaa waalan iyo waxaasa qaldan iyo hebel baa qaldan iyo reerahaasa qaldan midna aynan oranayn ayaa haddana waxaan doonayaa in aan cabiro arrin iyadoo neutral ah oo muhiimaduna ay tahay aqoon isweydaarsi ama wax u sheegis kadibna qofkii ku wacyi ama ku aqoonsada ama aqoontiisu ay kor uga kacdo in aan Allah maxaan ku radaa waxa noogu daro taan baan dhihi lahaa markaan ka soo hadlaynay anxiety disorder-ka waxaan runtii gaar ahaan u taabtay waxa loo yaqaan special phobia special phobia ama phobia gaarka ah ee baqdinta iyo walaaca iyo walbahaarka runtii aan ka hadlay waxay ku saabsaneen arrin gaar ah oo shakhsiga ku dhacday tusaale ahaan waxaan usoo qaadanay haddii gabar qof uu kufsado nin raga haddii gabar uu kufsado ama ay dhacdo maxaan ku radaa waxyaalo dhib badan oo qof loo geystay oo qofkii uu xusuusanayo ciddii u geysatay marka waanu ka soo hadalnay qofkaasi inuu develop gareyn karo nacayb zaa'id ah oo ku wajahan qofkii ama dhacdadii ku dhacday dhacdada ku dhacday buu qofkii nacayaa ciddii ku samaysu nacayaa marka uu maqlo ama arko waxa weeyaan qofkaasi waxay ku dhalanaysaa waxyaalo runtii inaga aynan arki karahayn maadaama inaga aysan taaban oo qofkii ay ku dhacday runtii wuxuu marayaa waxa loo yaqaano stress aad zaid ah oo ku keena soo rogaal celin oo qofkii dhib badan taa waanu ka soo hadalnay haddii aan sii jilciyo oo runtii wax practical aan ka hadlo waxaan soo xasuustay oo anigaba xitaa igu dhacay waxaa jirtay markaan caruurta ahayn waxaanu lahayn maxaa la dhihi jiray waxa loo yaqaano ama barmiil ama fuustooyinka lagu garaangartoo kale sida loogu maxaan ku rahdaa loogu ciyaaro ayaan maalin runtii intaanu ku cayaarnay oo garaangartaa saas oo kale aan maxaan ku rahaa fuustada intaan lugaha korkeeda fuulan u garaangelin jirnay waxaan xasuusanayaa markii ay sheekada noo dhamaatay kadib baa waxaa dhacday dhuudhuumisho oo kale inaan cayaarnay oo aniga intaan orday dirin meel taallay aan isku daboolay ayaan xasuusanayaa dirintaa marka aan sidaas isugu garaangeliyey oo aan dhexdeeda ku dhuumanayo waxaa dhacday inaan meeshii aan ku xabismay markii hore dhuumashaan u galay anoo caruura oo aan maxaa la dhihi jiray muhiimadeedu waxay ahayd ku dhuumo meesha kadibna waaba ka soo bixi waayey markaasaa firq nafta meesha iga dhici lahayd oo maxaa la dhihi jiray runtii dhibaatada iga dhacday waa ilaa hadda ma ilaawo
hadda markaan soo xasuusto salli la isku duuduubay iyo dirin sidaa la isugu duubo marka aan niyaddeeda ay ku soo dhacdaba runtii waxaa ii shidma hormoonno iyo stress hormones runtii ayaa igu shidma markaan akhrinayay special phobia waxaan is yiri waa malaha waa waxaas oo kale dad badanna taa iyo wax ka badan way haystaan waxaa kaloo jirta iyana agoraphobia wax loo yaqaano oo runtii qofka uu ka baqanayo inuu banaankaba u baxo oo suuqyada uu tago waa ka soo hadalnayna waxaan kaloo ka soo hadalnay oo ama aan doonay inaan kuu sheegay iyana inay jirto wax loo yaqaano panic disorder oo qofka uu mararka qaarkood isagii dhanba maxaan ku rahdaa waxaa qabsanaya tush naxdin nabar oo qofkii hal mar ku soo xusuusinaya wixii qabsaday taasoo baqdintaasoo keenta runtii inuu qofkii uu concentrationkiisa uu dhumo qofkii inuu fikiri waayo qofkii inuu walwalo qofka inuu walbahaaro qofka inuu maxaan ku rahdaa waxyaalo badan uu qofka ku dhacaan oo panic disorder waxaasoo dhan waxaa kaloo jirta iyana arrin kale oo social phobia loo yaqaano oo qofka dhan uu ka baqanayo bulshada uu ka baqanayo uu bulshada usan rabin banaanka inuu ugu baxo oo qofku waxaad arkaysaa markii ayba noqoto masaajidii iyo magaaladii iyo aroosyadii iyo meelihii maxaa la dhihi jiray dadku isugu imaanayeenba qofkii nakata waa ka soo istaagaya wuxuu rabaa inuu gurigiisa joogo maxaa yeelay dhibaatooyin isaga u gaara oo cid kale aysan ogeyn laakiin isagay haysataa isagiina maxaan ku rahay qofkii dhici karto inuusan weli uusan garaysan inay wax jiraan oo cillad inay tahay uusan weli garaysan waxaa kaloo jirta waxaasoo dhan marka laga soo tago oo special phobiyihii agoraphobiyihii panic disorderkii social phobia waxaa kaloo jirta oo dadka iyaga ku badan runtii intaasoo la isku wada daray oo noqonaysa iyana generalized anxiety disorder ama GAD generalized anxiety disorder qofkii inuu walbahaaro oo uusan ku koobnaynba waxaa taabtay mid gaar special phobia way haysaa agoraphobia way haysaa social phobia way haysaa waxaan dhan way isugu tageen sidaasaana maxaan ku rahdaa bulshadii runtii aan isleeyahay dad badan oo inaga mid ah ayay runtii ku soo badanaysaa marka si aan wax badan uga ogaano furimaha kan si aynu wax badan uga ogaano xaalaadka jira ayaa runtii waxaa jirta waxa aan isleeyahay caafimaadku markuu qofku completely optimal and wellness qofku uu yahay physically iyo mentally qofku markuu yahay waa meel buu taagan yahay oo sidii loo baahnaa ah laakiin qofka marka xaalad yar ay hayso oo special phobia oo ama ay hayso social phobia anxiety disorder qofka ay maxaa la dhihi jira ay ku bilowdaan qofka runtii wuxuu ka baxayaa aagii optimal healthiga ahaa ee maskixiyanka ahaa runtii qaarkood waxa weeyaan waxay u dhow yihiin wax yar bay ka durkeen meeshii wax yar bay ka durkeen marka areada runtii aan doonaya waxay tahay in aan inoo sharxo aan ina tuso area dhan oo runtii kala guur ah oo qofka uu ka guurayo meeshii habboonayd ee wanaagsaneyd caafimaadka completeka qofka uu qabay iyo area runtii aynan jeclayn oo qofka waali ah oo qofka dharka uu tuurto ee insane ah oo qofka intaanu gaarin xaalad dhan baa jirta oo u dhaxaysa intaas xaaladaasi waxaa ugu horeeya oo runtii anxiety disorderka ugu horeeya in my opinion anxiety disorderka oo runtii oo qaarkoodna ay iska yihiin caadi oo qof kasta uu qabo dhammaantayanu maxaan ku haddaynu nahay Soomaali yaraa iyo weynaa ha nagu badato ama ha nagu yaraato waa jirta xaalaadkaasi laakiinse waxay noqonaysaa haddii qofka aanu kaba warqabin in qofka aanu ka warqabin oo waxaasi iyo wax kale iyo waxa maanta sii dhacaya wixii isugu sii darsamaan qofkii xaaladii kala guurka ee transitional zonka oo transitionka ah ayuu qofku kusii fogaanayaa ilaa ay kama dambaysta ay noqoto meel aan waxba laga qaban karin marka waxaan doonayaa qaybtan aan ka hadlayo ee maskaxda ah qaybtan aan ka hadlayo ee caafimaadka maxaan ku rahdaa maskaxiyanka ah mental healthiga ah
anigoon dhahayn imtixaan maxaa anigoon dhahayn mental health baan ka hadlaya ama dhibaato iyo waali ee waxaan sheegayaa aan soo bandhigayaa waxa ii muuqanaya dabadeedna qof kasta adiga ku taala marka sida aad wax uga qaban lahayd adiga dhamaantay way noo taala si aynu arintan wax uga niraahno cashirkay maanta ama aqoonsi wadaarsiga maanta aan ugu talagalnay intaas uu ku dhan yahay hadduu alla idmo ujeedadeedu waxay tahay kelmadda agtayda taala inaan gudbiyo sidaan doonaan ku gudbiya wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.